واركي كدعي هوتيل المدينة كيس أسعاسي مجال الإسماعيلي والله بيتونكي بشي تطبات جمعية الصور عاطل ضد بدنا يكون انتين ضد بدنا كنا وعمل يمكن لما الله نحرسته ضد كي كتجر نسمي ما الله كسيو انت داوعنا إلى أي جرجع دقيقة كسيو يعني كسوق مثلا داوعس سيجارة وحنا متعسير إن ولكن اللاقي هراء رشاح محمد إسماعيل الشورية وهو جريودي شنكاس وركاس وهو تعسير الناس سيجارة مشكلة واجعل من الماتنا للجوة لكن تي الله كتير انت عمرك لقد ترو انت صحيح قدو الشيء ففهمتوا اسكبر قدنا دون كرتا لكن قلبنا عن ربنا من وسط لقى حريقه وحيدها شو بلان دورش على الرواية كدعوة مانا عميش الكواد دورش كدعوة الصوماليا ميلا بدن بيت الصور على يديتها فيدرالكا يديتها دول الدولية دورشو يكون سيئة يدعان يهبرع لرعاية باجر waxaan rabnaa inaan hoosta ka xiriirno doorashada hadda Jubbaland ka socota inay guud ahaan dabamarsan tahay nooca doorashooyinka Soomaaliya. Waxaan rabnaa inaan xaqiijino doorashadaas inay afduuban tahay una afduuban tahay ninka madaxweynaha ka ah Jubbaland ee xilkiisu hadda dhamaaday hadduu murashax yahay inuu murashaxiinta ka mid noqdo la doonayo hadduusan murashaxayn inuu banaanka istaagan la doonayo inay u afduuban tahay inay u afduuban tahay processkii oo dhan hadday tahay xulitaanka baarlamaanka iyo habraacyadii la raaci lahaa oo dhan inay afduub ku jiraan oo si cad u afduuban yihiin waxaa muuqata odayaashii dhaqanku inay afduuban yihiin waxaa muuqata nidaamkii security-gu inuu afduuban yahay waxaa muuqata shuruucdii oo dhan in laga booday oo si shaksiya barnaamijkaas qof ugu adeeganayo waxaan rabnaa taas Soomaaliya maanta nin intuu isagu meel istaago wuxuu rabo samaysan karaa ma jiro cid aqbalaysaana ma jirto umana suurageliso laakiin waa waqti dhumis iyo qariska xoornimo iyo wax burburin waxaan rabnaa inaan ku soo celinno doorashadaasi dariiqa ay lahayd odayaasha dhaqanku ay u madax bannaanaadaan qoys waliba tirada uu leeyahay inuu la yimaado oo halkii kursi hal qof loo soo xiro oo maxaan ku idhaha odayga soo xurayaa u noqdaa kii saxda ah laakiin odaygani waa diidan yahay iga tuuro mid kale baadiye iga keena hebel ii soo qor waxaan ognahay baarlamaankii Jubbaland soo bixi lahaa liiskiisu inuu qoray lana rabo in lagu dhawaaqa labada maalmood ee soo socota odayaasha la xaraynaya waxba kama jiraan proseska la marinayo feega waxba kama jiraan liistigii baarlamaanka Jubbaland waa qoran yahay mar dhowna waa la soo saaraya isagoo process la marin taasoo looga jeeda in lagu khalkhalgeliyo oo lagu carqaladeeyo doorashadaas waxaana ka shaqeynaya dadka hadda hawsha gacanta ku haya wax la aqbali karana maaha waxaan rabnaa in aan u soo jeedino beesha caalamka iyo dowladda federaalka adduunka marka la tartamaya dadka tartamaya dad arbitra u dhexeeya jira annaga waa tartamaynaa haddaan tartamayna arbitra inoo dhexeeyey waxa weeye guddiga doorashada odayaasha dhaqanka dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo Soomaaliya caawisa waxaan rabnaa haddii kuwaasi ay shaqayn waayaan waxaa dhacaya isdhexyaac waxaan rabnaa odayaasha dhaqanka oo bilowgii ah ee rasmiga in la siiyo xuquuqda ay leeyihiin oo ah inay qofkay rabaa soo galaan iyagoo beenahooda la tashanay waxaan rabnaa in dowladda Soomaaliya iyo caalamka ay furjoogto ka noqdaan oo wixii khaldan haddaan anagu khaldannahayna qabtaan haddii cidka guddiga doorashadu khaldama ay qabtaan haddii odaygu uu maxaan ku idhaahdaa ka leexda dariiqii loogu talagalay ay qabtaan oo kii midaan ahayn la rabo in wax lasoo qoro haddii ay maxaan ku idhaahdaa maamulka meesha jooga isku dayaan inay shaarkooda iyagu tashaan oo isku cabiraanna la yidhahdo maya kan idinkama tooranaysaa mid dadkoo dhan u wada geli karo qof kasta mid u geli karaa la rabaa in la toro qofka ugu yariyo qofka ugu weyn raallina lagu wadaya guddiga doorashada habraaci ay ku yimaadeen annagoo aragna inuu dhinac marsan yahay ayaanu nidhi daseeg of doorashadu qabsoontaa la dhaafo laakiin hadda waxaa muuqata inay dhexdhexaadnimada lumiyaan iyo inaan ku kalsoonaano inay lumiyaan waxaan rabnaa mar hadday kalsoonidii lumiyeen proseska ma hogaamin karaan sidaasi darteed guddiga doorashadu labay mid noqonaysaa in ay dib ugu laabtaan
maxaan ku idhahdaa inay noqdaan dad wax lagu kalsoonaan karo kalsooni la yimaadaan iyo in aysan wadi karin doorashada. macnaheedu waxay tahay waxaa la hayaa wax cad oo idinka media aad haysaan oo guddiga doorashada qaar ka mid guddiga doorashada dhan ma wada qaar badan nadiif ah ku jira laakiin in qaarkood ay ka tallaabeen xadkii guddinimo oo ah doorasho. midda kale guddi doorasho decision maker ma go-aan ma gaadhaan iyagoo aan ka ahayn natiijada soo baxday waa facilitators waxbay hagaajiyeen hebelow waxaana kaa khaldan hebelow waxaana ku hagaagsan wixii inay isku hagaajiyaan laakiin iyagu ma go-aamin karaan qofka xildhibaan noqonaya ma go-aamin karaan odayga wax soo qoraya ma go-aaminayaan tirada la soo qori doono ma go-aaminayaan maxaan ku idhaha qaabkaas oo dhan. qodobada kale cajiibka ah waxay dhaheen doorashada madaxweyne waxay dhacaysaa 24 ilaa 31 waa 7 cisho 7 cisho doorasho madaxweyne oo socoto weliga dabaan maxaa looga jeedaa waxaa la rabaa in la yidhaha doorashada madaxweynuhu waxay dhacaysaa 15 bisha August waxay bilaabanaysaa 8 subaxnimo in la yidhahdo oo qof waliba kusoo talagalo laakiin 24 ilaa 30 ay dhici doontaa ma 29 ay dhici doontaa mise macnaheedu waxay tahay murashaxiinta magaalada iska joogta in la yidhahdo doorashada waa la qabtay in la yidhaahdo ujeedka looga jeeda waa intaas oo murashaxiintii jooga la doorashadii waa la qabtay oo waa dhacday hebel baa guulaystay taana ma suurageliso. qodobka kale ee ah meesha doorashada lagu qabanayo meesha doorashada lagu qabanayo waa inuu qof kasta oo murashaxiintu ma aha murashaxiinta madaxweynaha keliya waxaa jira kuwa aan hadli karin oo raba inay xildhibaanna noqdaan oo raba haddii hadlaan ka baqaya in xildhibaannimada laga reebo annagaa u hadlayna waxaa la rabaa meelay ku qanacsan yihiin xuquuq way leeyihin waxaa la rabaa odaga wax soo qoraya meelay ku qanacsan yihin waxaa la rabaa annaga meelaan ku qanacsannahay ma aha meel halba furay uu ku qanacsan yahay. annaga Jubbaland kama baqayno ciidankeeda waa ku kalsoonnahay deegaankeeda waa ku kalsoonnahay haddana doorashadu waa ka duwan tahay waa inay noqoto meel lagu wada kalsoon yahay oo dadku uu wada arki karo sida wax socdaan oo beesha caalamku ay korjoogto ka noqon karto. ma rabna inta la yidhaahdo howl hebel baa lagu qabanayaa wixii hotel cascasay ka dhacay oo kale inay ka dhacaan ma rabno waa in laga taxadaraa oo maxaan ku idhahdaa laga diyaar garoobaa. qodobka ugu dambeeya oo aan raba inaan hoosta ka xariiqo waxay tahay haddii intaasoo dhan indhaha laga qabsado waan aragnay beesha caalamkaa tagtay waxaa ugu dambeeyey xogaayihii ninkii qaramada midoobay madaxda ka ahaa James Swan oo tegay daraad wixii uu ka hadlay waa laga been sheegay wax ka duwan baa laga hadlaya waa cadda hay-ado badan baa tegay haddii doorashadaasi dariiqeeda lagu soo celin waayo oo ay free fair and safe election noqon weyn murashaxiintu xaq waxay u leeyihiin odayaashii dhaqanka oo la socda bulshadii Jubbaland oo 99% isbedel doona meel alla meeshaan rabnaa inaan doorasho ku qabsano madaxweynaha rabnaa ku doorano oo raalli la isaga